Muuqaalkeena maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 10 qof oo ay tahay in aad noloshaada ka ilaaliso. Midda koowaad, dadka kale ka sheekeeya kuna dhaha ma maqashay hiblaayo waa la furay, dadka afaarahooda mar walba ku maqan kana sheekeeya jabka ama dhibka walaalkiis soo gaaray. Xasuusnaa qofkaasi berito adiga ayuu sidaas kaaga sheekeyn doonaa. Qodobka labaad, qof ay kala tageen kaaga sheekeeya ama ha isqabaan ama xiriir ha ka dhaxeeyo. Weliba ka sheekeeya dhammaan wixii xumaana qofkaas uu lahaa isagoo iska kaadhiga inuu yahay qof wanaagsan asaga xumaan walbana ay jirtay qofkii kale ay kala tageen dhinaciisa. Qodobka saddexaad, dadka damac badan, wiil iyo gabar wuxuu raba ha ahaadee, qofka noocaasa ma ahan qof nolosha la wadaagi karo. Berito ayuu si fudud kuugu dhaawacayaa, weliba meel cidlo ayuu kaaga tegayaa. Iska ilaali qofkaas. Qodobka afaraad, dadka mar walba noloshooda kaaga sheekeeya wixii ay haystaan kuu amaana, dadka kale oo dhanna iska ignore gareeya. Qodobka shanaad ama qofka shanaad wuxuu yahay qofka marka aad dhibkaaga u sheegato kooda kuu weyneeya halkii aad talo iyo caawinaad ka rabtay in aad ka heshana kuugu bedela dhibkiisa inuu kooban yahay dhibka adiga ku haysta ilaa aadba aragto ama aad gaarto heer uu dhibkaaga uusan waxba kula ahayn. Midda lixaad waa dhanka haasaawahe, qofka markuu noloshaada ku soo biiro ku yiraahda noloshayda oo dhan waa adiga. Taasina waxay ku tusinaysaa in uu been cad kuu sheegayo, sababtoo ah qofkani miyuusan lahayn nolol adiga kaa horeysay. Qofka toddobaad waxa uu yahay qofka beenta badan oo afkiisa markuu kala qaadaba been ku hadla, weliba dhaar ku dara mararka qaar. Qofka sideedaad waxa uu yahay qof aad daris ahaan jirteen ama aad hal meel ka soo wada shaqayseen oo aad hal mar isbeddel ku aragto isagoo kuula yimaada hadal dabacsan, deeqsinimo, ammaan iyo waxyaabo badan oo aadan horay ugu baran. Taas oo markii dambe ay dhacdo inaad isweydiiso waxa qofkani iyo shakhsiyadiisaba iska beddelay. Qofka sagaalaadna waxa uu yahay qof mar ku qiyaamay, waxaadna ogaataa inuu ku qiyaami karo mar iyo marar badan weliba. Marka waa inaad iska ilaalisaa qof mar noloshaada dhaawacay una ogolaan mar kale inuu noloshaada ku soo biiro. Waxaadna ogaataa khiyaanadu ma ahan gaf iyo khalad ee waa wax loogu talagalay in lagugu sameeyo. Qofka tobanaad oo ah qodobka u dambeeya waxa uu yahay saaxiib kula tartama mar walbo. Saaxiibka dhabta ah kulama tartamo, waxa uu ka shaqeeyaa danaha gaarka, waxa uu ka shaqeeyaa sidii aad u guulaysan lahayd, waxa uu ka shaqeeyaa sidii uu garab kugu siin lahaa guusha inaad gaarto ee kugulama tartamo in uu kaa guulaysto. Saaxiibka dhabta ah waa saaxiibka guushaada iyo farxadaada asaga isku xilqaama kana shaqeeya.